وهن على جبين الدهر شاما وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين خديجة وهي أول من أجابت بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وكتاب كان يها صور من حياة صحابيات جليلك وإذا كإلهي إنه هل كان كأخرين دونه وحال هذا القميصاء بنت ملحان المكنات توصل لغنا نيسو بأم سليم بين أناس تيدنا أهيد تذكرنا أم أنس والهجرين ما سمعنا ما أنا مقل بامرأة هويني قد ولي كانت أهاتي أكرم مثل كرامة أما كون أكسن مهرا حق مهرك من أم سليم ما أنا مقل بالليين أم سليم قف كم مهر ونأكسن إذ وقت كان أوبا هذا مهرها مهرك الإسلام إسلامي ماذا كانت waxay ahayd alqumaysaa gabadha qumaysa la yiraahdo bint milhan xiina waqtigii ahalla oo ka soo ifbaxay al-islaamu islaamkii binuurihi nuurkiisa oo ka soo ifbaxay ala al-ard dhulka dhaxdiisa oo ka soo ifbaxay nasfan kala bar takhdu mid u talaaba qaado nahwa al-40 qiyaasti 40 min umri xagga umrigeeda wa kaana wuxuu ahaa زوجها نينكيدا ولا بيجري مالك ابن نضير بالهجري يسبغ وهو دحم تيمبيي عليها دشيدا غبداس وهو دح تيمبيي من وارث حبه أي ظلال حبه الممتدد نعم وهو دح تيمبيي وارث حبه هرك جعلك هركيس وذليل وحور ضلت كجدجي وداده جعلكي أي ضلت كجدجي ما كاسو ملأ كبوحي حياتها نولشدي نظرة قرح ورغدا ينول ونكسن عيش ونكسن وكان وحي أهايين أهل يثرب لا يثرب وحي أهايين يقبضون الزوجة قف ككمت أو كجعل ننك السعيد أي ليباني على ما تحلى وحأوصفه به أسجع عقيلته لما هي سأبقف كلنا لهي من رجاحة العقل على عقل فربضنان وبعد النظر أركتده ذو فك وحسن التبعل حسن التبعل حكوليه هاي إذا نعم أداء حق الزوج بالطاعة والإحسان إن أجدته زوج كحق أيضا أداعيسه إحسان الله إيمانه يسوي مركا أهل يثري وحي أهايان بالو يري كو قفك كشيك شيغو زوجك وناكسن هدو هلو السعيد زوجك وناكسن كل جيرين وامدك هلو قف لما أنا وعقلي بدن يحي أركتيدن أي دير تهي أداعي سنة نينكيدا وناجينيس وماشي حتى الصومالي كتراهدو نين والبابا نينكا وكا ناق وناكسيه وكفي عي حقيقة نينك ستور رجعناه اللواح اسبده دمر باكدم بعيد عن مركز تعصيت الماما أيكوي نعم وكان وحي هايين أهل يثرب ريم مدينة وحي هايين يقبضون كومارت كما شاء أما تلمامد أما كل شيء قد الزوجة نينك السعيدة نينك الليباني إنه يهي على ما تحلى به مثل يكسفوذو عقيلته حاسكيسا من رجاحة العقل أنا تامد عقل بدن وبعد النظر من أركت فك إسلام أركت فك وحسن التبع نعم وحسن التبعل مد جذان يسحق إن كذا الإحسان الله إيمان يسوي وفي ذات يوم من الأيام الله مال المال مها إلهي كمذا
alkhaalidati ee waarayso nafada waxaa usoo wafdiyey ilaa yathrib magaalada yathrib waxaa soo aaday wafdi ahaan usoo aaday maca addaaciyati almakiyi daacigii reer mako muscab ibnu cumayr ah baa usoo qasdoo soo aaday wey awalu shucaacin kaasina wuxuu ahaa ilayskii ama shucaacii min ashicati hidaayati awalu shucaacin min ashicati alhidaayati ayuu ahaa iftiinkii ama ilayskii ugu horeeyey ee hanuunkii almuxamadiya ee nebi maxamed xaggiisa ka ahaaday wey fatafataxa wuxuu furay lahu asaga qalbu alqumaysaa'i gabadhii ahayd qumaysaa aynu hadda ka hadlayna qalbigeedaba ilaahay uu asaga sabab kaga dhigay inuu kala furmo wey kamaa sidii tatafataxu ay u kala furfurmaan azaahiiru riyaadi beeraha ubaxooda litabaashiiri sabaaxi markay subaxi bishaareynay ubax markuu beerta ku yeelo subaxi uu soo baxo oo inuu ubax wanaagsan soo baxay saas isu kala bandhalaa saasoo kale wey awalu shucaa'in ilayskii ama iftiinkii min ashicati alhidaayati hanuunkii iftiinkiisii ahaa almuxamadiyati ee nebi maxamed xaggiisa ka ahaaday fatafataxa lahu wuxuu furay waa muscabe qalbu lqumaysaa'i qalbigii qumaysaa binti milxaan buu furay kamaa sidii buuna u kala furfuray tatafataxu ay u kala furfurmaan azaahiiru alriyaadi ubaxa beeriha ka baxo say u kala daataan oo kale wax beereedka litabaashiiri taasoo bishaaraynayso asabaaxi subaxaas dhalashada ay soo baxay subaxaas ayadoo bishaaraynayso famaa labithat ma nagaaninba an aclanat inay muujisato islaamahaa islaamkeedii yowma maalintii kaana uu ahaa almuslimuuna muslimiintay ahaayeen fi lmadiinati magaaladii madiina yucadduuna kuwa lagu tirin karo cala alasaabici farahaba lagu tirin kara wey uma intaa kadib dacat waxay u yeertay azawjatu alwafiya xaaskii oofinta badneed waxay ugu baaqday zawjahaa ninkeedii al ahiiri ee saamaynta ku lahaa liyanhala macaha si oo la cabo min hada almanhali alilaahiyi alcadbi aldahuuri liyanhala macaha si oo la waraabo oo la cabo min hada almanhali cabidaan ay ka cabaysaan ilaahiya xagga ilaahay ahayd alcadbi ee macaanid addahuuri daahirkeed ceelkan ilaahiga ah ilaahay noo soo diray ee islaamnimada inuu la cabo cabitaan baa lagu sheegaya uu la qaataa laga wadaa waa kinaaya iyo sarbeeb wayaxdaa ugu ahaado mid nasiib badan kamaa sidii xadiyat iyada ugu nasiib badnaatay bihi islaamnimada min sacaadati aliimaani iimaankana ay ugu guulaysatay inuu asagana barwaaqadan la galo ayay ugu baaqday wey uma intaa kadib dacat way u yeertay azawjatu xaaskii alwafiyatu ee oofinta badnayd zawjahaa ninkeedii al ahiira ee raad iyo saamaynta ku lahaa liyanhala si oo la cabo macahaa la jirkeeda min hada almanhali alilaahiy midka kan ee ilaahayga laga cabayo alcadbi ee macaan addahuur ee daahirka ah wayaxdaa uu ahaado mid nasiib u noqdo bimaa xadiyat say nasiib oogu yeeratay bihi ayada ama bihi lislaam islaamka laga wada bihdaas min sacaadati aliimaani iimaanka ay ku guulaysatay ama liibaanta islaamka laakiinse maalik ibnu nadar oo ahaa ninkeedii lam yashrax liddiini aljadiidi diintii cusbeed kumayna sharxamin ama laguma sharxin sadran laabtiisa laguma sharxin wey walaa daaba bihi nafsan naftiisana lamaysan qurxinin oo umaysan cuntamin wey bal inahu asaga dacaa wuxuu ugu yeerayay zawjuhu xaaskiisii wuxuu ugu yeerayay zawjahu xaaskiisii bilmuqaabili kasoo horjeedkii ila arujuuci inay ka soo laabato can ilislaami islaamka ay ka soo noqoto waalcawdati una soo noqoto ilaa diini alaabaa'i diintii aabbayaashii iyo waljadaadi iyo awowyaashii nacam watashabaha kullu min azawjayni bimowqifihi watashabaha wuxuu ku dheganaaday
kullu min azawjayn labadii lamaanaha ahaa bimowqifihi mowqifkiisii falqumaysaau gabadhii qumaysa la dhihi jiray takrahu waxay karhaysay an tacuuda inay ku laabato ila alkufri gaalnimada bacda aliimaani markii iimaanka heshay kamaa sidii yakrahu u karho almar-u qofka an yuqdafa in lagu tuuro fi nnaari naar qof lagu tuuroo kale se u karho ayay u karhaysa weeyaan. wa maalik ninka maalik la yidhaahdana yatacasab wuxuu u tacasubaya u leexanayay lidiini alaabaa'i diintii aabbayaashii waal-ajdaadi iyo awowyaashii fii cinaadin si madax adayg leh. wa kaanat waxay ahayd alqumaysaa'u gabadha qumaysa la yidhaahdo tamliku mid hanato min quwati alxujati xujo cad bay hananaysay maa tufximu ay kula doodo bihi zawjahaa zawjkeedii. maa tufximu ay waxaa laga waa waxay kula doodo burhaan iyo daliil cad bay haystaa wey. wuxuu ku sheegayaa maa taskat bihi zawjaha min daliil walba ay ku aamusta ninkeeda oo daliil iyo xujo haystaa wey. wa kaanat waxay ahayd alqumaysaa'u gabadha qumaysa la yidhaahdo tamliku mid hanato min quwati alxujati xujad quwadeeda maa tufximu taasay kula doodo burhaan cad bay haystaa wey bihi zawjaha ninkeeda. wa kaana fii dacwatiha dacwadeeda iyo diin ugu baaqideedana waxay ahayd min nuuri alxaqi nuurkii xaqay wadataa wey maa yafdaxu taasoo weji gabax ku ah ama fadeexeynayso baadilahu baadilkiisii alwaahi ee daciifka ah almutahaafiti ee sii dhacyo wey assaaqid ee sii dhacayo baadilkii daciifka ayoo sii dhacayo xujo caday kaga raysa haysataa wey. wa kaana wuxuu ahaa limaalik ninka la yidhaahdo sanamun sanam baa u sugnaaday min khashabin ka samaysan ulwaax yacbuduhu uu caabudo min duuni illaahi ilaahay sokodiis. fa kaanat waxay ahayd tuxaajuhu mid kula doodo fii amri arrinkiisa qaa'ilatan ayadoo leh atacbudu warma waxaad caabudaysaa jidca shajaratin jirid geedkiis nabata ka soo baxay fil ardi dhulka allatii taasoo tad'uhaa aad saartid biqadamika cagtaada aad saartid. jirid ama xidid jiriddiisa ka soo baxay dhulka oo aad cagahaada dul saartid miyaad maaragtay caabudaysaa wey. wa tarmi fiiha aadna ku tuurtid fadalaatika saxaradaada iyo waxyaalaha wasaqda ah aad ku tuurtid wax dhulka laga soo qaadayo miyaad caabudaysaa bay dhihi jirta. atacbudu ma waxaad caabudaysaa jidca shajaratin geed jiridkiis nabata ka dhashay fil ard dhulka ka soo baxay wey allatii taasoo tada'uhaa aad saartid biqadamayka cagahaaga oo cagahaada ka hoos maraan. wa tarmii aad ku tuurtid fiiha dusheeda dhulka fadalaatika saxaaradaada iyo wasaqdaada. atadcuu ma waxaad baryaysaa min duuni illaahi ilaahay sokodiisa khashabatan luwaacma geed najarahaa uu qoray laka adiga kuu qoray xabashiyun xabashi oo maaragtay afrikaan ah oo min sunnaaci almadiinati reer madiina tumaalkooda ahaa u garaaci jiro wax u tutumi jiray. walamaa goortii daaqa uu ku ciririyoobay azawju ninkii darcan dirciis waxaa laga wadaa markay xaaladda ku cakirantay. walamaa daaqa zawju darcan waa markay xaaladda ku cakirantay waa dhigi kartaa ama waxaa dhigi kartaa walamaa goortii daaqa uu ku noqday cariiri azawju ninkii darcan dirciis dirci baa deeqi waay oo laga wado ciriiri buu galay wey. bixijaji zawjatii xaaskiisii xujadeedii addaamiqati ee dooda lahayd addaamiqati dood loo dhigan aan lahayn wey. addaamiqati inta wuxuu leeyahy allatii laa yajidu alkhasma canha xawlan wuxuu ku difaaco oo kula doodana uusan haysanin wey. walamaa goortii daaqa zawju darcan markay xaaladda ku cakirantay ninkii bixajaji xujooyinkii zawjatahu xaaskiisii addaamiqati ee wax uu loo babac dhigo oo lagula doodo aan lahaynin wey hee qaadara waaba iskaga dhaqaajiyey almadiinata magaaladii madiina. wamadaa wuxuu aaday haa'iman calaa wajhi asagoo hamiyey wejigiisa u jeediyey haa'iman asagoo hamiyey calaa wajhi wejigiisa mutajahan una jahaystay naxwa bilaadi shaam meelka dhawaa ka dhaqaaj dhulka shaam uu aado wey. uma intaa kadib innahu asaga lam yalbath maba nagaanin hunaaka halkaas qaliilan in yar ma ahaane xataa intii maata uu dhintay
calaa shirkihi gaalnimadiisa ciyaadan billaah halkaasuu ku dhintay asagoo shirkigiisii xambaarsan wey walciyaadu billaah ilaahay baan ka maangalnay inaan gaalnimo ku dhimanno wamaa in shaaca fi lmadiinati maba ku shaacin oo ku fidin magaaladii madiina khabaru warkii taramula alqumaysaa inay noqotay carmal ama garoob xataa intii tashuuqa ayba jeclaadaan kahiiru min alrijaali rag fara badan ila aliqtiraani bihaa gayaankeeda ahaa ama dad la jinkeeda ahaa ama dad u cuntamo ayada ay isku jin noqon karaan oo isguursan karaan wey wamaa in shaaca ma fidin fi lmadiinati magaalada madiina kuma fidin khabarkii taramul ilqumaysaa inay noqotay qumaysaa garoob ama carmal xataa intii tashawaqa ayba jeclaadaan kahiiru min alrijaali rag fara badan oo ila aliqtiraani ee la jinkeeda ahaa ama gayaankeeda ahaa ama dadka ayada inay geeyaan u dhigmi kara wey hadday noqon lahayd nasab iyo hadday noqon lahayd maal iyo hadday noqon lahayd dhinac kastaba waayo qof jinni waxay dhihi jireen shibirba shibirkiisu la duulaa nacam lowlaa annahum haddaysan ahayn kaanuu yakshowna kuwa ka boqo dadka la jinkeeda ee gayaankeeda ahaa an taruddahum inay soo celiso oo ay ku soo daadiso khaa'ibiina ayagoo hoogsan limaa baynaha wa baynahum waxa dhexteedan ama waxa dhex yaallo labadooda min alikhtilaafi xagga kala duwanaanta fi ddiini diinta lowlaa annahum haddaysan ahayn kaanuu yakshawna kuwa ka boqo an taruddahum inay soo celiso khaa'ibiina ayagoo hoogay oo ayagoo faramaran inay soo celisaa laga wadaa limaa baynaha wa baynahum waxa dhexdooda yaallo oo min alikhtilaafi fi ddiini diinta ay ku kala tagsan yihiin diinta ay ku kala tagsan yihiin leanna ayadan islaam wa ayay kale kristaan wa haddaysan ahayn wax diinta inay doodu halkaas ka gasho ay dhahdo oo isku diin ma nihin inta kale way ku raacsanaan qurux iyo mansab iyo qaab walba gabadha way jeclaayeen laakiin waxay ka baqeen inay liajli diin ay u soo celiso hayra anna inkastoo zayd ibnu sahal ninka la yidhaahdo almukanaa lagu naanayso biabi dalxa admacahu ayaa wuxuu damcay fii ridaaha inuu ayada ku raaligeliyo bihi waxay ayada u baahan tahay inuu ku raaligeliyo isku dayay maa kaana baynahumaa asagoo weliba fiirinaayo maa kaana baynahuma waxa dhexdooda ahaaday min rawaabid alqurbaa qaraabay ahaayeen waa isxigeen wey fakilaahumaa labadooda min bani najaar reer bani najaarna isku ahayn ayadan reer bani najaar waay ninkaana reer bani najaar waa marka qabiil haddii la fiiriya waa isxigaano waa qof haddii nasab iyo noqoto waa isxigaan wey hayra anna inkastoo zayd ibni sahal ninka la yidhaahdo almukanaa lagu magacaabo biabi dalxata abi dalxa admacahu uu damcay fii ridaaha bihi inuu raaligeliyo maa kaana baynahumaa soo weliba fiirinayo maa kaana waxa dhexdooda ahaaday min rawaabid alqurba qaraabo isku xiriirinaysa fakilaahumaa waa ayadoo ah alqumaysaa bintu milxaan iyo isagoo ah abu طalxa min bani najaar bay ahaayeen wey madaa wuu dhaqaajiyey abu طalxata ayaa dhaqaajiyey ilaa beyti alqumaysaa gurigii qumaysaa ayuu aaday wakhaadabahaa wuu la sheekaystay bikunyatihaa weliba markuu la hadlay wakhaadabahaa wuxuu kula hadlay dheh wakhaadabahaa wuxuu kula hadlay bikunyatihaa kunyadeeda qaa'il asoo dhahay carabta aaday u jecel yihiin kunyada in gabadha la yidhahdo umu caaisha iyo umu qataada iyo umu sulayma iyo umu fulana iyo umu jecel raggana abu way jecel yihiin abu axmed iyo abu cabdilmajiid abu naasir abu kada carabta waa dhaqan laakiin soomaalidu annagu waxaas uma istaajino waxaas dhaqankanaga ma ah nacam madaa wuu dhaqaajiyey abu طalxata dhaqaajiyey ilaa beyti alqumaysaai ayuu aaday gurigii qumaysaa wakhaadabahaa wuxuu kula hadlay bikunyatihaa kunyadeedii uu rabo inuu kusoo jiito qaa'il asoo dhahaya yaa ummi sulaym umu sulaymay laqad xaqiiqee ji'tuki waa kuu imid khaadiban anoo raba inaan maaragtay kula khidaabo nacam faarjuu waxaan doonayaa ama khaadi anoo inaan kusoo doonadhihi karaa faarjuu waxaan doonayaa allaa uradda khaa'iban inaanan noqonin anigoo gacmo maran anigoo hooga wey anigoo dee aad igu daadisay inaanan noqon baan jeclaan lahaa buu yidhi
faqaalat waxay tihi wallaahi ilaahay baa horta ku dhaartay dhegaysay tihi maa miluka yuraddu adoo kale lama celiyo yaa aba dalxa aba dalxow nin la celiyo ma tihid bay tiri walaakinaka laakiinse rajulun baa tahay walaakinaka laakiinse rajulun nin baa tahay kaafirun gaal oo mushrig oo asnaam iyo wax liita caabudayo wa ana aniguna imra'atu mana haweeney muslimatun ilaahay ku xiran oo keliga caabudo shirki iyo daaquut iyo shubahaad ay kala fog yihiin walaa yaxillu xalaalna ima ahli aniga an atazawajaka inaan ku guursado ama inay guursatid fa in tuslim haddii laakiin aad islaamtid fadaaka mahrii kaasi wuxuuba noqonayaa meherkayga walaa uriidu minka kaana dooni maayo sadaaqan meher hayra alislaami aananba ahayn islaamka allahu akbar saaxib waxay tihi nin la cesho ma tihi nin ragoo qiimay qaayaleh baa tahay gayaankaygaa taho waad i geysaa laakiin arrin baa na kala dhex taallo oo na kala dhex teelayso anigu gabar muslimadaan ahay adiguna gaal baa tahay taas haddaysan jiri lahayn waa ku soo dhoweyn lahaa wey laakiin aan kuusii bishaareeye saad igu heli lahayd baan kuu sahlayaaye saaxiib islaamnimada qaado meherkaygana wuxuuba noqonayaa oo keliya inaad islaantid wey faqaala wuxuu yidhi dacnii iidaa ama ii ogolow xataa andura saan u fiiriyo fii amri arrinkaas saan u celceliyo maskaxeeda oga soo shaqaysiiyo ii ogolow buu yidhi waayahay ku tahi marka wamadaa wuu dhaqaajiyey walamaa goortii kaana uu ahaa algadu berrioo kale caada ilayhaa wuu ku soo noqday wa qaala wuxuuna ku yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh allahu akbar tawxiidkii meesha ku qaatay ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa allah ma ahaane waxdahu keligii laa shariika lah waday iyo wax lala wadaajiyo rabbi tabaaraka watacaala ma jiraan wey waashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxamadan nabi maxamed cabduhu addoonka ilaahay iyo warasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay faqaalat waxay tihi marka amaa wainaka qad aslamta adiga waad islaantay faqad radiituka raalli baan kaaga noqonayaa zawjan inaad maanta lamaanahayga ninkayga noqotay raalli iyo nus baan ka ahay tiri fajacala annaasu dheh dadki waxay bilaabeen yaquuluuna waa reer madiine yaquuluuna inay dhahayaan maa samicnaa maynu maqal biimra'atin haweeney qad hadda ka hor ama qad weli kaanat ahaatay akrama mid ka karaamadan mahran xagga meherka min ummi sulaym id kaana mahruhaa mar hadduuba ahaaday meherkeedii alislaam islaamnimada mahruha alislaam nacam haawey abu dalxata ninka la yidhaahdo bimaa kaanat waxaa u ahaaday tataxallaa bihi umu sulaym waxa ay ku sifooday umu sulaym min kariimi shamaa'ili sharaf iyo wanaag shamaa'il waa sifaat sifooyin wanaagsan bay lahayd wey iyo wanabiil khasaa'il iyo dabeecado degan shamaa'il iyo khasaa'il waa macna isku dhawaa shamaa'il waa sifaat marka waxaa u sugnaaday wey umu sulaym min kariimi shamaa'ili duu khisaalin kariimatin xamiida waxay lahayd sifaat wanaagsan oo la mahdiyo iyo wanabiil khasaa'ili sifooyin aad dadka u doorbidaan wey uma intaa kadib zaadahu waxaaba ku ziyaaday sacaadatan liibaan biha ayadoo uga ziyaaday annahaa ayadu wadacat lahu waxayba u dhashay hulaaman wiil hadaaba ahaaday qurata cayni ildogsigiisii wa farxata qalbi iyo qalbigiisii mid qaboojisa wey nacamhaa abu dalxata ninka la yidhaahdo bimaa kaanat tataxallaa bihi umu sulaym waxa uu ka helo sifooyin wanaagsan umu sulaym min kariimi shamaa'ili dabeecad wanaag iyo wanabiil khasaa'ili iyo deganaan iyo sifaad wanaagsan uma intaa kadib zaadahu waxayba u ziyaaday sacaadatan liibaan iyo farxad buu leh bihaa sababteeduna ay tahay annahaa ayadu wadacat lahu waxayba u dhashay u dhigtay hulaaman wiil hadaa ahaaday qurata caynihi ildogsigiisii iyo wa farxata qalbihi farxadda qalbigiisa laakiin baynamaa kaana waqti yata'ahabu lisafarin uu isku diyaarinaya safar min asfaari safaradiisa ninkan ganacsadu ahaa marka safaradiisa mid kamid asoo isku diyaarinayo ishtakaa waxaa sheegtay aطiflu wiilkii asagiiru wiilkii yaraabaa xanuunsaday wey ishtakaa waxaa cawday aطiflu ilmihii asagiiru ee yaraa min cilati alamat bihi xanuun daran oo hayay aawadiis
fajazaca wuu la argagaxay calayhi jazcan argagaxid shadiidan ee daran kaana wuxuu ahaa kaada wuxuu ku sigtay dheh yasrifuhu can isafari xataa inuu safarkiiba iska baajiyo iska joojiyo uu ka joogsada dheh wa fii haybatihi alqasiiri maqnaantiisii yarayd dawaa nacam maqnaantiisii yarayd dawaa ay waxaa daciifay alqusnu laantii annadiiru ee quruxda badneed ilmihii yaraa baa laga wadaa ilmihii baa xanuunsadaa laga wadaa wa fii haybatihi alqasiirati maqnaantiisii yarayd oo safarkii ku baxay wey safarkii kama joogsana wuu aaday dawaa waxaa taag darnaaday alqusnu laantii annadiiru ee quruxda badneed laga wada ilmihii yaraa baa xanuunsada wey uma intaa kadibna wuuriya ahara wuxuuna mutaystay ciidda oo laga wada waa la aasi doonaa wey uma intaa kadib wuuriya waxaa la geliyey wey dufina fi turaab ciiddaa lagu aasay wey marka wuxuuna mutaystay ciidda wey faqaalad marka ilmihii yaraa baa dhintaa laga wadaa hadalka annaga waa sarbeeb ilmihii yaraa markuu xanuunsaday tii alla u timid faqaalat marka waxay tidhi ummu sulaym baa waxay ku tidhi liahliha ehelkeedii bay la hadashay waxay ku tidhi laa takhbiruu ha u sheegina abaa dalxata ninkayga abaa dalxa ha u sheegina bimowti ibnihi dhimashada wiilkiis xataa intii ukhbirahu ana ilaa aan ani oga sheego walaalayaalow gabdhihii guriga la jooga asaga ayadii qaraabada ahaayeen iyo ninkay qaraabada ahaayeen dhammaan bay waxay ka codsatay inaana ninkeeda lala wadaagin khabarka quseeyo dhimashada ilmaheeda iyo wiilkiisa caada wuu soo laabtay yaa soo noqonayo abuu dalxataa soo laabtay min rixlatihi safarkiisii yuu ka soo noqday fatalaqathu way la kulantay ummu sulaym ninkeedii bay la kulantay haashatan baashatan allahu akbar haashatan si farxad leh baashatan raynraynna ku dheehanta si kal ilaa bay oola kulantay wey nacam farixatan farxad mustabshiratan ee weli u bishaaranayso nacam fabaadara markaasuu la soo degdegay bisu'aali su'aal can isabiyi ilmihii yaraa ka warran buu yidhi waa nin dee wax ku taagan yihiin weliba farxadday ku qaabashay waxaa la sheegaa inay isoo udgisay isoo carfisay dharka soo bedelatay timaha soo dabatay ayadoo aad moodo gabar yaroo aroosa ay albaabka hore oga hortagtay guriga nacam fabaadarahaa wuxuu oola degdegay bisu'aali su-aashii ku taagnayd oo can isabiyi ilmihii yaraa ahaa faqaalat waxay ku tidhi dachu iska daa fa innahu al'aana hadda asaga askana maa caraftahu dheh wixii aad ku ogeyd hadduuba ka degan yahay tir marka hore xanuun baad ku ogeyd soomaa haddiiba ka degan yahay uma intaa kadib qarabat ilayhi waxay u soo dhoweysay alcashaa cashadii wa jacalat waxay guda gashay tu'nisuhu inay wehelinayso oo ay isku xodxodinayso wa tudkhilu calaa qalbihi asruur qalbigiisana ay ku abuurayso farxad waxaa la sheegaa habeenkaas inayba aroos galeen falamaa goortii waajidat ay ogaatay annahu ninkii shabica inuu dhergay wastaraaxa raaxaystay oo jamci iyo kulan uu dhex maray qaalat lahu calooshay u buuxisay sariirtan ay ku qaabishay qaalat lahu markaas waxay ku tihi yaa abaa alxa abuu alxow ara'ayta bal ka war low anna qowma qowm istarjacuu caariyatan hadday iska celiyaan caariyatan caariyo acaaruuha ay soo tabalcaaraysteen liaakhariina dad kale ay ka soo tabalcaarday iska celiyaan ka waran afa min xaqihim miyaysan ahayn xaqooda an yakhduu inay ilaa ay u tilaabo qaadaan calayhim dadkii ay ka soo qaadeen xaggooda ow yamnacuuha minhum soo inay ka manciyaan u diidaan intuu qof wax ka soo caariyaysto ma inuu caariyadii iska celiyaa mise wa an yamnacuuha minhum dadkii ay ka soo qaateen inay u diidaan waay qaala wuxuu ku yidhi la way iska celinayaan mayo yidhi waa inay celiyaan qaalad waxay ku tihi ina allaha ilaahay istaradda minka wuu kaa ceshta adiga maa wahab wuxuu ku sii caariyaduu kuu dhiibtay rabbiguu kaa ceshtay bay tihi faxtasib xisaabso waladaka welidkaaga cindahu ilaah agtiisa ku xisaabso war fiiri gabadhan caqliga iyo qiimaha ay leedahay ninkeedii oo safar ka yimid oo daalan oo asagaba tiis haysato habeenkii kumay seexino kurba war fiiriya
waxay ku sooxaysay farxad marka hore waxay ku soo dhaweysay farxad qalbigiisii bay dejisay way jamceen way jamaaceen way baashaaleen way casheeyeen farxaddiisa ugu waday ayay ka dhaadhicisay hadalkan qabow fatalaqaa abu dalxa wuxuu ku qaabilay fatalaqaa uu kala ku abu dalxa qadaa allahi biridaa ilaahay raalli ahaanshihiisa wuxuu ku qaabilay biridaa raalli ahaansho iyo watasliimi iyo isdhiibid muxuu samayn karaa wuu iska aqbalay xoogaa wiil carabaa la yidhahdo laakiin marka dambe waa aqbalay walamaa goortii asbaxa waa bariistay hadaa wuxuu ku kallahay calaa rasuuli illaahi sala allah rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxadatahu wuxuu uga sheekeeyey bima kaana min ummi sulaym wixii ummi sulaym ku samayso uga sheekeeyey fadacaa lahu walahaa asaga iyo ayada uu u duceeyey bian yucawidahum allahu khayran ilaahay inuu khayr oogu bedelo mimaa faqadaahu waxay waayeen wa an yubaarika lahumaa laboodana uu u barakeeyo fi lciwadi bedel kale faاstajaaba allahu ilaahay waa waajiibay jalla wacaza weynaayo haalib ahaaye ducaaءa nabiyihi salى اllahu عalayhi wasalam ducadii nebigiisa calayh الsalaatu wasalaam waxamalat waxay xambaartay oo uuraysatay umu sulaym uur bay qaadawe walamaa goortii atamat xamlaha xamligeedii iyo uurkeedii uu dhammaystirmay kaanat waxayba ahayd caa'idatan ila almadiinati min safarihi safar ay ku maqnayd inay kusoo noqotay rabtay hiya ayada iyo wasawjuha ninkeedii oo maca rasuulillahi nebiga ay la soo noqon rabeen wey sal alla alay slam falamaa goortii danow ay u soo dhowaadeen min yahriba magaaladii madiine ahayd jaa'aha almakhaadu fooshi baa qabatay wey fatawaqafa wuu istaagay abu dalxa ayaa la istaagay macaha ayada la istaagay safar baa lagu lakin ninkeeda u haray wey oo u istaagay wamada الnabiy اlkariim sal اllahu alay wasalam nebigan uu iska dhaqaaqo waxay dhehen hore uso nabig annaka isla joogeyne iska socday dheheen yuriidu nebigu wuxuu doonayay dukhuulu اlmadiinati inuu magaalada madiine galo qabla an yajina calayhi اlleylu intuusan habeenka ku gelin qabla an yajina calayhi اlleylu intuusan habeenkii gudcurkiisa u gelin ayay dhaqaajiyeen wey farafaca wuxuu u taagay abu dalxa darafahu aragiisi ila samaduu kor u fiiriyey wey oo ilaahay uu baryaa laga wadaa wa qaala wuxuu yidhi soo la hadla gacmahana kor u taagtay innaka yaa rabbi innaka adiga la taclam waad og tahay yaa rabbu rabbiyow annahu aniga yucjibnii waxay cajab gelinayo an akhruja inaan la baxo maca rasuulika sala allahu calayhi wasalam rasuulkaagii idaa kharaja markuu baxay inaan la baxaan jeclaha wey wa an adkhula inaan la galo macahu la jirkiisa idaa dakhala markuu meel soo galo waqad manacanii ilaahayo waxaa iga manciyey min daalika arrinkaas maa tara waxaad arkaysoon kaa qarsoonayn wey faqaalat lahu markaas waxay ku tiri umu sulaym yaa abaa dalxow innii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ajidu ma helaayo min alami almakhaadi fooshi xanuunkeedii heli maaye bihada almawlidi ilmahan maa kuntu maahi ajiduhu min qabl waxaa marka hore helaya xanuunka helaya hadda ma helaye fandaliq bina ina kici walaa tata'ahar ha ka daahin can suxbati waxay artay ninkeeda inuu qalbigiisa ku weyn yahay rasuulka inuu magaalada la gal inuu rabay fandaliq bina ina kici walaa tata'ahar ha ka daahin can suxbati rasuulillaahi nebiga sala allahu calayhi wasalam inaan la suxbayso raacdid wey faqaalat waxay ku tiri lahu asagii umu sulaym yaa abaa dalxow innii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ajidu ma helaayo min alami almakhaati xanuunkii foosha bihada almawluudi ilmahan maa kuntu ajiduhu midkaan helaayay min qablu hadda ka hor fandaliq binaa ina kici walaa tata'ahar can suxbati rasuulillaahi inaad nebiga la saaxiibto safarka la socotid ha ka harinay tiri fandalaqaa way dhaqaajiyeen xataa intii idaa balaqa ay ka gaaraan almadiinata magaaladii madiino wadacat way dhigtay markiiba saas magaalada usii galeenba xamlahaa waxay siday wey uurkii faidaa huwa waaba ghulaamun wiil bayba dhashay wey faqaalat markaase waxay ku tiri liman xawlaha dadkii ag joogay laa yurdicuhu axadun qofna yuusan nuujinin qabla an tadhabuu bihi ilaa aada la aadaan ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka xaggiisa falamaa goortii asbaxa waaga uu dilaacay xamalahu waxaa xambaaroo qaaday ilayhi ilaa rasuulilah nabiga xaggiisa u qaaday akhuuhu walaalkii anas ibnu maalik oo walaalkii anas maaligo
wiilkan waxay isku hooyo yihiin wey falamaa ra'aahu markuu arkay annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay muqbiran inuu soo qaabilayo ninka la yidhaahdo anas qaala nebigu wuxuu yidhi lacalla waxaaba laga yaabaa ummu sulaym gabadhii ummu sulaym ahayd waladad inay dhashay faqaala markaasuu anas wuxuu yidhi nacam haa yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow wawadaca wuxuu dhigay algulaama ilmihii ama wiilkii fii xijrihi nebiga dhabtiisu saaray fadacaa nebigu wuxuu dalbaday bicajwatin timir oo min cajwi lmadiina timirtii cajwada ahayd magaalada madiina walaakahaa wuu calaanjiyey fii famihi afkiisuu nebiga ugu calaanjiyey ashariifi ee sharafta badnaa xataa intii daa'abad ay u qoyday oo bashaq u noqotay wey wawadacahaa oo u jiracday wey u qoyday u jiracday oo wadacahaa wuxuu geliyey fii fami sabiyi ilmihii yaraa afkiisii fii fami sabiyi ilmihii yaraa afkiisii fajacala ilmihii wuxuu bilaabay yatalamaduhaa inuu muudmuudsanayo ayuu bilaabay uma intaa kadib masaxa nabiga wuu masaxay wajha wiilkii wejigiisii biyadihi gacantiisii alkariimati ee wanaaga badnayd wasamaahu wuxuuna ku magacaabay cabdallah addoonka ilaahay addoonka ilahay cabdullahi buu ku magacaabay magaca nabiga u doora salawaatu rabbi wasalaamu calayh fajaa wuu yimid fajaa waxaa ka yimid waa ilmahaas nabiga maalinkaas timirta cajwada afka u gelinaye fajaa waxaa ka yimid min sulbihi sulbigiisa iyo nasabkiisa waxaa ka yimid 10 min culamaa'i alislaami alakhyaari 10 culummada islaamka oo akhyaarta ah ayaa ninkaas noqday tafiirtii iyo meesha ka soo jeedeen oo maaragtay asalkooda halkaas ahaayeen wey walaqad xaqiiqe kaana wuxuu ahaa min sha'ni ummu sulaym sha'niga ummu sulaym wuxuu ahaa annaha ayada axabbat inay jeclayd rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay way jeclayd xubban jecel bay jeclayd khaalada ku milmay minhaa ayada kaga milmay allaxma waalcadama lafta iyo hilibka jecel dhuuxa ka galay ayay jeclayd rasuulka calayhi salaatu wasakana jecelkaasoo degay fii xabbati alqalbi qalbiga ubucdiisa qalbiga guntiisa qalbiga meesha ugu hoosayso ayuu ka gala jecelkaas saasaana loo baahan yahay walaqad xaqiiqee kaana wuxuu ahaa min sha'ni ummu sulaym arrinka ummu sulaym waxay ahayd annahaa ayadu axabbat mid jeclaatay rasuula allahi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi naxariis iyo wasalaamuhu nabadgelyo calayhi dushiisa ahaatee xubban kalgacaltooyo khaalada ku milmay minhaa ayada xaggeeda allaxma hilibkii iyo walcadama iyo lafta dhuuxa ka gashay wey jeceel lafaha ka galay wey wasakana jeceel kaa soo degay fii xabbati alqalbi qalbiga meesha ubucdiisa ah wadnaha urkutaaladu qalbiga ayuu ka galay jeceelkaas wey waqad balaqa wuxuu gaaray saasaan loo baahanya qof walba in rasuulka jecla salawatu rabbi wasalaamu calayh waqad balaqa wuxuu gaaray min xubbihaa kalgacalkii lahu ay nebiga u hayso maa xadata canhu ibnuha miduu xataa ka sheekeeyay wiilkeedii anas ahaa qaala anas wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa naa'iman mid jiifo fii beytina gurigeenna daata nahaarin maalin maalmaha ka mid ah oo maalmaha caadiga ah wa kaana alxaru shadiid heerkulkuna ama qoraxduna ay aad u kuleyd wey fa akhada waxaa bilowday alcaraqu dhiid yatasabu inuu ka shumayo min jabiinihi nebiga maaragtay daankiisa ama dhabankiisa waxa ka shumayo meesha uu jiifay salawaatu rabbi wasalaamu calayh meesha sariirta uu ku jiifay marka hoosta saas loo fiiriyaba sariir alow oo maaragtay sariir iska caadi ah oo gacan lagu sameeyo nebiga ku jiifaa marka sariirta waxaa meesha ka dacayaba dhididka nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana rasuulu llahi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa naa'iman mid jiifay fii beytinaa gurigeenna daata nahaarin maalin maalmaha ka mid ah wa kaana alxaru shadiid heerkulkuna wuu darnaa fa akhada waxaa bilowday alcaraqu dhidid yatasabu inuu ka shumayo min jamiinihi dhabankiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa jaa'at ummu saliim waxay la timid ummu saliim biqaaruuratin qarod bay la timid dhalo qarudda waxay dhigtay sariirtii hoosteeda haye wa jacalad waxay bilowday tusallibu inay ka hoorsanayso fiiha alcaraq dhididka nebiga ka tifka dhaa inayba ka hoorsanayso ayay bilowday
فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام النبي كسوك عمرك وقال له ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم وما حد سمعنا أم سليمي أم سليمي ما حد سمعنا النبي كويري قالت وحيتري هذا كان عرقك وديدك أجمعه وان جمعنا وان كل منيا وأجعله وحانا كدغانيا في طيب برافون فيغدو وحوهانيا أطيب الطيب برافون مدك ugu udgoonka badan ficlan asaas nabi dhidkiisa waa la barakeysan jiray uu arfi jiray nabi kaleey salaam tintiisa dhidkiisa waxa soo dhan waxa way baraka ku jirto ilaaha barakay meesha nabiga fadhiyo barafon wali loo baahnay sallallahu alayhi wasallam waa tahay wa min shawahid hubbiha شواهد يحيى لو قال ليه جعل كذا وحوها صلوات الله وسلام عليه وهي أيضا كثيرة وفيرة آد أقبضنا وحوها أن ابنها ويل كذي أنس كانت له وحأصغناتي ذؤابة فود تنكل هاوي تنوس كل الميسو على جبينه دبن كيسا وفود بولها وتنحقها مركزات انت أقول له أنتو أي حسو قارت دبن فرغب إليها زوجها فرغب وحو جعلاض إليها زوجها ننكيد وحو كجعلاض أن تقصها له إني أغشى كيسو فودع عنق أديسي وحي كالد الليذها بعد أن طالت مركي كل يرسي واحد بدأ أنتو ودي وحبنا أغشى كينو أي لا ديراتي أي كل يرسي يكون ضاهي سوي بعد أن طالت مركي كل ضاهي سوي فأبت ذلك أرنك أسان أشك تويدي دوي نعم لأن محايا صلوات الله وسلامه عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان وحوها كلما أقبل عليه ما ألا نكو أنا سأقابله مسح وحمسيح جري رأسه مدحيسة بيده قعنتيسة ومس النبي يركو حتى جري ذؤابته فودي سهرة المدللة إكرها رعضه أسرها رعضه على جبينيه لبنكيس ومن شواهد حبها وحيا لها لو تلمامي كانوا حبي جيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن يجعلها وهي وحاوي كثيرة فربضا وفيرة فربضا أن ابنها ويل كذا أنس لهذا كانت له وحولها ذؤابة فوت تبد بولها تنوس أي كل الميسو على جبينيه لبديس مارتي dhabankiisa kalluun tinta soo dhaqaajisay dhabanadiisa kalluun labada daan dhabanada faraqiga marka wuxuu jeclaystay ilayha ninkeedii oo ahaa Malik ibn Nadir wuxuu jeclaystay zawjuha ma Abu Talha markaan Abu Talha waa laga yimid kii hore faraqiga wuxuu jeclaystay ilayha ninkeedii zawjuha ilayha xageeda wuxuu ka jeclaystay zawjuha ninkeedii anta qissa lahu inay uga shaqeyso tintaan dheer wiilkeeda bacda an taalat markay ku dheeraysay oo fa abad dalika inay uga shaqeysana ay diiday لأن النبي صلوات الله وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان وحوها مركان وشيء مركان حيتري كان وحوها كلما أقبل عليه مر على مركو سوق قابله أنس مسح وحكم مسح جري رأسه مدحيسة بيدي قعنتي شرط له ومس وحونا النبي تابن جري ذؤابته فوديسا دير ذؤابته فوديسي المدلالة أصو فوررته أما أصو هوبانيسو على جبينه دبنكيس marka waxay diidaneed nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam gacantiisa sharafta badan foodan ay taabato maalin kasta ku saa ugu masaxayo inay jarto xirtay diidaneed oo way barakeysanaysaa wiilkeeda xilliga barakaasa kugu taalo ayay waadna garanaysan Anas asagoo 10 sano jiray nabiga oo keentay kaleey salaam oo khaadim u ahaa 10 sano ayadana ku maaragtay gifti iyo hadiyad uga dhigtay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ولم تقتصر كما كوبنين خصائل أم سليم تلمامه هذه على أنها كانت إنا أهيد مؤمنة قبر إله الرميسوي راسخة الإيمان إيمان كذا أسوية هاي عاقلة واثرة العقل يعني أدف ربضي هاي زوجا إنا يتهاي حاس وأما إنا يتهاي هايو من الطرازي مثال ولبقى الأول تصاليه نفط هليق قفك هليق ولا وضع إذن التهاي أنت سكوا في الأول دراز وحاجة قفك مثال كهوي من الدراز الأول أنا تهاي كتتك الوضع إذن أهروي وإنما إن كلامها كانت فوق ذلك كل وحاس أنبوه كسر ريسان مجاهدة باهت في سبيل الله دين تلا أجهادي فلكم إمسو ملأت إكبو حسين
نعم أي كبوحسي رأيتها ده لبدي ذا كليوت رأيتها فلكم إمسو ملأت أي كبوحسي رأيتها لبدي ذا كليوت من غبار المعارك بوركي دقالك العبقي ما عرفتي بوحي عبق قصب كل شيء حلوه هاي عرفي مركب وحكوت لنا يا بور كاسونها بور وعرفيه إلهي درتي مدام لو بوروبي إلهي درتي وحولي المضمخ بالطيب لغو بوحية لغو ملاصي برافون كوي فلكم إمسا ملأت إكبوحسي رأيتها لبدي ذاك اليوم من غبار المعارك بورركي غبارك وبورك واي المعارك الدولانكي بورركي مارتي بورك ما تقانا والسيجدة عيدك على واي oo marka qofka safarka uu yahay ciidanka kacda meesha min gubaar al ma'arik borki dulanka al abaq ee lagu dhawaaqay udgoonka bi duyub al jannati udgoonki jannada ama arafki ama udgoonki jannada marka borki udgoonka badnaa ee udgoonki jannada ahaa ayay lagu dhawaaqay buu ahaa marka hadaa Soomaalihan kooban ku sii waxa way imiso ayay kaliyeedi iyo ma aragtay labada kaliyood أي لبوروبين إلا أي لبوروبين غبار المعارك عيدي يسيجدي يبوركي كاسول لجبوحي أدقونكي جنة برافون الله سبحانه قال مودد جنة ويان نعم وخضبت وحكوا علامتي أنا ملها عديه هذي وخضبت وحكوا علامتي أنا ملها عديه هذي من جراح المجاهدين الله أكبر داوع المجاهدين وحلقة ولا جودة بيجي بقعنتي الله جسوي مركز المدينة إعلان عمر سنية وهي أيضا ها تمسحها كتر تريسو بيدها قعنتي وتحكم كحكمين عليها الضماد ما ارتفاع شدي أم وحي كدو بيس وحل وحي لا داوع ضماد وكان ما يربط به الجرح وحقفك داوع الوحيرة وخضبت وحيكو علامة أناملها عدي هذه من جراح المجاهدين داوع يد المجاهدين وهي أيضا تمسحها كتر ترس بيدها أيضا رحمن اسكحجيني قعنتي كتر ترسها وتحكم عليها دنحا كمان الضماد وحيكو حريس فاشدها يحاسوي ولكم إمساء نعم سكبت أي كانتي الماء سكبت أي كشبتي ده الماء بيها في حلوق العطاش تدكي أو من قرطو ذي ميقي كشبتي بيو وهم أيكو يجودون هرايو بنفوسهم نفتو ذا في سبيل الله إلهي درتيس إمسي وراء يسوي هو نفتو ذا هراي إمسي أفك بينت أشبتي دون تقو يسوي ولا كم إمسو سكبت أي كشبتي ولا كم إمسو سكبت أي كبو حسي أما أكشبتي الماء بيو في حلوق العضاس كو أو من قرطو وهم أيكو نعم يجودون أهرايو بنفوسهم نفتو ذا في سبيل الله درتيس وحملت أي وح أقادي اللهم أيكا أزاد صهيدا وأصلحت أي أهجادسي السهام قمونكي فلاريه قمونكي أهجادسي الله أكبر مركب بدأ جهدي كذا صلوات النومية لقد حقيقة شهدت ويكقيب قادتي أحد دجالك أحد وجوب بهيد هي أيضا وزوجها نكيدي أبو ضلحها مع رسول الله نبي الله جلك ساهين ودأبت وحيولي بالجوك تيس هي أيضا وعائشة رضوان الله عليهما لم الله كران لقضي على نقل إن سوق هذان قراب الماء ديشة مارتي أما ويلك لقوض بيها على ظهريهما دبركودي ها ما بيها مارتي ديشة لقوض بيها دبركودي سوسة رايوي وإفراغها وحين كشبايين كفار جنايين في أفواه القوم ضدك دجالم مجاهدين أي كشبايين بيها سجينيين لقد حقيقة شهدت وهي كقيب قاتي أحدا دولانك أحد هي أيضا وزوجها ننكيدي أبو ضلحتها مع رسول الله النبي معوديهين ودأبت وحي لازمتي هي أيضا أما إجوكتيسي يا عائشة رضوان الله عليهم ألا كان نقضي على نقل إن صوت الضلعيان غراب الماء به على ظهريهما لو دبرك هانت بيها إلى برك صارنا يوي وإفراغها إن كبوا حنايان كجدنايان في أفواه أفكوذا القوم ذاتك أفكوذا كشوان بيه كورامنا بكتي بيه صوت داميان
ay u keeneen waraabinayeen bay hadalkaas oo dhan u dhacaya kamaa sidii shahidad ee uga qayb qaadatay xunayna dagaalkii xunayn aydan sidoo kale waqad ittakhadat waxay ka yeeshay linafsihaa nafteeda waxay ka yeeshay yowma daaka maalinkaas maalinkii xunayn waxay ka yeeshay waxay u samaysatay yowma daaka maalinkaas khinjaran toori aflay samaysatay waa tahay watamnadaqat bihi wayna afaysatay wey watamnadaqat bihi wayna afaysatay nacam falamaa goortii ra'aahu wuu arkay zawjuhaa ninkeedii abu dalxata markuu arkay qaala wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayo haadihi tani umu saleem weeye macaha waxayna wadataa weliba khinjara toori wadataa toori afaysana gabadhan wadataa buu yidhi faqaala laha الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam nabiga wuxuu ku yidhi duulaanka iyo dagaalka dhex taagan la kaftamay wuxuu ku yidhi maa haada yaa umu saleem waxaana maxay yihiin buu ku yidhi qaalat waxay tidhi khinjirun waxaa weeye toori ittakhadtuhaa aan yeeshay oo xataa intii ittakhadtuhu aan ka dhigtay dheh xataa intii idaa danaa minii hadduuba igu soo dhowaado axaduna min almushrikiina mid ka mida gaalada hadduu igu soo dhowaado baqartu aan ku dooxo bihi badnu hadduuba gaal igu soo dhawo waxaan rabaa inaan caloosha u geliyo oo calooshiisa aan dooxay dhahday fajacala wuxuu ahaaday rasuulullahi sal ly rsulka ilaahay yadxaku inuu ku qoslayo suruura asagoo waliba qosol farxad leh bimaa qaalad waxay tihi geesinimadeeda iyo libaaxnimadeedu la yaaban yahay nacam wabacdu intaa kadib aduu kula hadlaya marka afa tadunnu war midka akhrisanayo ama midka maqlayo waxaad u malaynaysaa ana calaa dahri ardi dhulka guudkiisii imra'atun inay ahaatay haweeney ascada ka liibaansan sacaadatan guul waazhaa kana fiican khaatimatan khaatimo u fiican min umu sulaym bacda an qaala fiiha mar hadduuba ku yidhi rasuulu llahi rasuulka ilaahay dakhaltu ljannata jannadaan galay fasamictu waxaan maqlay fiihaa jannada dhexdeeda waxaan maqlay khashafatan khashafada waxaa lahaa shanqarta khashafaan maqlay nabiga alayh slam shanqar baan ku dhex maqlay jannada faqultu waxaan idhi man haada shanqartaani maxay tahay qaaluu waxaa lagu yidhi alqumaysaa bintu milxaan wey shanqarta aa maqlaysa waa gabadhii qumaysaa bintu milxaan ahayd oo umu anas maalig ahayd marka iyo masharaf ka dambaysaa jirta wey wabacdu intaa kadib afa tadunnu waxaad u malaynaysaa ana calaa dahri اlardi dhulka guudkiisa ama dushiisa imra'atu inay haweenay saaran tahay ascada ka liibaan badan sacaadatan guul iyo liibaan waazhaa kana wanaag badan khaatimatan xagga khaatimada min umu sulaym bacda an qaala fiiha marba hadduu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dakhaltu ljannata jannada ilaahay baan galay fasamictu waxaa maqlay fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda waxaan ka maqlay khashafatan shanqar xarakatan mashi socod wey qof yar shanqaraya soconayo faqultu waxaan idhi man haada wartani maxay shanqartaan yaa waaye qaaluu waxay ugu dhaheen waa malaa'igtii alqumaysaa bintu milxaan weeye umu anas ibnu maalik hooyadii anas ibnu maalik dhashay radia allahu tacaala canha waardaaha ilaahayna gabdhahanaga ayadoo kale sifaadkaas qaaliga ay qaadatay ilaahay ha ku duwo annakana ilaahay subxaanahu watacaala ha nagu intifaaciyo صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته